asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. cashirkani waa cashirkii ugu horeeyey ee koorsada English Inside Out. marka cashirkan waxaan ku sharxayaa insha allahu siday koorsada u ekaan doonto iyo waxyaabaha aad koorsada ku baranaysaan iyo waxyaabaha aad ka filanaysaan insha allah. marka horta koorsada magaceedu waxaa la dhahaa English Inside Out ayaa la dhahaa. koorsada magaceeda waxaa la dhahaa English Inside Out. okay, waa English oo si fiican loo faaqidayo insha allah. marka waxay ka kooban tahay saddex qaybood ayay ka kooban tahay. level 1 iyo level 2 iyo level 3. waxaan rajeynaya inaad sabuurada si fiican u arki kartaan. marka saddexdaas qaybood ayay ka kooban tahay. marka level 1 waxaan ku baranaynaa wax la dhaho basics. okay, basics, English basics ayaan ku baranaynaa insha allah. basics waxyaabaha kaloo ayadana xooga ku saareen waxaa ka mid ah reading, writing and listening. reading, writing, speaking iyo listening. waxaa xooga ku saareynaa aqrinta iyo qoridda iyo ku hadalka iyo dhageysiga luqadda Englishka ama fahanka. markaad eray English baqasho ama sheeko English baqasho inaad fahmi karto ayaan xooga ku saareynaa. dhammaan koorsado dhan waxay ku base garaysnaa doontaan 4 shay ayay ku base garaysnaa doontaa koorsado idil. laakiin level 1 iyo level 2 ayaan xooga aad ugu saari doonaa insha allah hadduu ilaahay kanal. waxaa kaloo ayadana baran doonaa hadduu ilaahay karaa noqdo some grammar, xoogaa yar oo grammar. some grammar xoogaa yar oo grammar ahna oo bilowga ah waa baran doonaa oo basic isagana waa baran doonaa level 1. marka level 1 waxay soconaysaa 4 bilood ayay soconaysaa 4 months. 4 bilood ayay soconaysaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. sida aan qorshahan ku talagalo waa 4 bilood inay socoto. waa ay ka badan kartaa laakiin inay ka yaraanayso ilaa ma ahan insha allah. level 2 ayaa iisoo haray. marka level 2 asagana waxaan ku baranaynaa horta marka hore wixii aan level 1 kusoo baranay ayuu meeshiisa kasii wadaa. builds on level 1. level 1 waxa aad fahantay ayuu halkeeda kasii wadayaa. reading, writing, speaking ayuu halkooda kasii soconaya. waxaa kaloo ayadana u dheer level 2gan tons of grammar aad u fara badan ayaan halkan ku baran doonaa. grammarka xoogiisa halkan ayaan ku baran doonaa. level 2 ayaan ku baran doonaa. level 1 waxaa xooga ku saarayna horta luuqadii inaan basekeeda dhisno oon si fiican u fahno ereyo badan, vocabulary badan aan barano, maxaa la dhahayay sharciyo yaryar oo aad fara badan barano iyo xoogaa yar oo grammar badano. aanan xirfadda readingka iyo writingkana aada xoog u saarno iyo listeningka iyo speakingka inaan xooga aada u saarno. kadib markaan baseka fahano si fiican u fahano ayaan waxaan xooga saari doonaa grammar aad iyo aad u fara badan ayaan baran doonaa. marka level 2 waxa waaye waa levelka ugu muhiimsan waaye level 2. marka level 1 asagana waa muhiim waaye, laakiin level 2 wuxuu ku gaarsiinayaa heer inaad luuqadii si buuxdo oo dhammaystiran oo baalkii aad iyo aad ayadoo deganaan ku jirto aad u fahmi kartid luuqadda. waxaa awood u yeelanaysaa inaad luuqadda ku hadli karto. waxaa awood u yeelanaysaa luuqadda inaad ku hadli karto, qori karto, fahmi karto markaad levelkan dhameyso. marka levelkan waa levelkii aad mataqaanaa uga gudbi lahayd anigu English ma aqaano iyo English si fiican ayaan u aqaana.
level 1 English badan ayaad baranaysaa, laakiin weli heer kuma gaarsiinayo inaad luuqadii si comfortable ah ama si mataqaanaa oo si qurux badan inaad u fahanto luuqadii ama aad ugu hadasho kuma suurtagelinayo. Laakiin wuxuu lafdhawr u yahay level 2 ayuu lafdhawr u yahay. level 2 oo ku gaarsiin doono inaad luuqadii si buuxda aad u isticmaasho ay noqoto luuqadii luuqad noloshaada ka mid ah. waad fahanteen aan rajeynayaa. marka level 3 waxaan ku baranaynaa advanced topics. waxaan ku baranaynaa advanced topics, waxyaabaha heerka sare ee luuqadda, advanced topicska iyo advanced grammar. Grammarada oo heerka sare ah. marka level 3 waad ka maarmi kartaa haddii aad intaa soo barato, hamigaaduna uu ahaa oo keliya inaad luuqadda ku hadasho oo keliya. balse haddii aad rabto inaad luuqadda aad ka dhigato xirfad ah ka dhigato ama aad mutacalim ah ku noqoto, level 3 aad iyo aad ayuu ayadana ku anfacaya. marka levelkan wuxuu luuqadda awood ku siinaa inaad master garayso. sabuurada ayaa hoos iga aaday markaan ka xumaa. waxaan jeclahay inaan levelkan oo kale wax ku qoran. marka level 3 asagana level 2 asagana wuxuu socon doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo 4 bilood ayuu socon doonaa. marka targetkaadu hadduu yahay inaad luuqadda barato waa inaad at least nala gaartaa ilaa level 4 level 2 nala dhameysaa. haddii aad level 2 nala dhameysto waad fasaxan tahay. level 3 waxaa ila joogaya oo keliya qofka rabo inuu luuqadda gacanta si xoog leh ula qabto insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdo. marka waxaan rajeynayaa luuqadda structurekeedu waa sidaas waaye. marka waxaan rabaa inaan sharaxaad kooban ka bixiyo sida luuqadda u shaqeyso. luuqadda marka how does the language work? luuqadda Englishka horta kama duwano luuqadaha kale. dhammaantood wixii luuqad ah luuqadba waxay ka siman yihiin 5 shay ayay 5 shay ayay ka siman yihiin. 5 shay ayay ka siman yihiin. 5tan shay ayaan rabaa inaan xoogga ku saarno koorsadan guud ahaanteeda, haddana si hordhacayna idinkugu sii sharxo. marka aniga waxaan jeclahay markaan rabo luuqadda inaan qaabka u shaqeyso inaan sharxo, nidaamkan ayaan jeclahay inaan u sawiro. waxaan rajeynayaa qeybaha hoose inaad arki kartaan. waxoogaa kor usoo qaado. marka qaybta hore reading waaye. luuqad walbo waxay leedahay waa inaad aqrin kartaa, waa inaad qori kartaa writing. si aad luuqadaas u dhahdo waan aqaanaa waa inaad aqrin kartaa luuqadda. sheeko qoran in markii lagu keeno inaad aqrin kartaa oo keliya uma ahan inaad aqrin karto, balse inaad waxa aad aqrinayso inaad fahmi karto, inaad erayadeeda fahmi karto, inaad structurekeeda fahmi karto. in haddii lagu dhaho sheeko ka qor, tusaale ahaan naftaada ka qor, haddii lagu dhaho naftaada ka hadal adigoo qorayo, adigoo ku hadlaya luuqadda Englishka oo kale ama luuqadda Soomaaliga oo kale, waa inaad qori kartaa. jumlo sax oo dhammaystiran waa inaad qori kartaa. waxaa kaloo ayadana muhiim ah speaking, inaad luuqadda ku hadli karto. maanta haddaan kugula hadlo erey ku dhaho oo kale, how are you inaan ku dhaho kale, waa inaad fahmi karto waxaan ku dhahay, kadibna I am fine aad dhihi karto oo afkaada ay kasoo bixi karto luuqadda. waa muhiim ayadana. waxaa kaloo ayadana muhiim ah listening. inaad maqli karto. waxaa loola jeedaa wixii aad maqashay inaad fahmi karto oo keliya. waa maqli kartaa, qof walbo dhagale wax walba uu maqli karaa, balse inaad waxa aad maqlayso inaad fahmi karto. tv-ga hadduu luuqad Englisha saaran tahay oo kale, in waxa uu sheegayo wariyaha inaad fahmi karto. markaan kula hadlaayo oo kale af ingiriisku kula hadlaayo inaad fahmi karto waxa aan kuu sheegayo. marka 4taas qaybood ayaa lafdhabar u ah. balse meeshaan dhexe maxaa ku jiro? waxaa ku jiro meeshaan grammar ayaa ku jiro, ama naxwaha ama sharciga. marka grammarka waxaan dhexda u geliyey waa lafdhabar ayuu u yahay dhammaantood. marka dhammaantood lafdhabar ayuu u yahay. maxaa yeelay ma aqrin kartid luuqadii.
oo shuruucdeeda ma fahmi kartid haddii aadan grammar aqoonin. ma qori kartid oo wax ma curin kartid haddii aadan grammarka ama structureka fahansaneyn. haddii aadan fahansaneyn farqiga u dhexeeyo future iyo past farqiga u dhexeeyo haddii aadan fahmi karin ma qori kartid ma qori kartid. tusaale ahaan oo kale haddii aadan kala dhihi karin oo kale I eat iyo I ate, labadan eray waxa ay ku kala duwan yihiin. Haddii aadan aqoonin luqadii si saxa ma u qori kartid. marka waxaan kaa caawinaya inaad grammarka fahmi kartid ayaa kaa caawinaya. sidoo kale speakingka kuma hadli kartid luqadii oo jumlo saxa ma dhisi kartid haddii aadan grammarki aqoonin. waad fahantaa rajeynaya. sidoo kale ayadana ma fahmi kartid waxa la sheegayo haddii aadan grammarka aadan fahansaneyn. marka waa lafdhabar, grammarka ayaa lafdhabar u ah, kuwan kalena ayagana waa lafdhabar waayo. marka waxay u yihiin udub dhaxaadka iyo yihiin grammarka ayaa udub dhaxaad ku ah, tiirarkii ay ku taagan tahayna waa luqada waa kuwan weeyaan. marka guud ahaan koorsadan intay socoto waxaan xooga saareynaa 5 qaybood ayaan xooga saareynaa. waxaan ku bilaabeynaa reading, writing, listening, speaking ayaan ku bilaabeynaa marka hore, oo wax badan si aan u aqrino, u fahano, u qorno. wax badan ayaan qori doonaa, wax badan ayaan aqri doonaa. marka kadibna si tartiib markaan luqadii helno oo xoogaa jumlooyin iyo erayo badan aan helno, kadib waxaan bilaabi doonaa grammarkii ayaan si tartiib ugu soo biirin doonaa. marka dad badan ayaa waxaa ka qaldan in grammar keliya ay isku dayaan inay bartaan ayagoon luqadii aqoonin. ma suurtagelayso. marka hore waxaad u baahan tahay wixii aad wax ku dhisi lahayd, xubnihii aad wax ku dhisi lahayd, erayadii aad wax ku dhisi lahayd ayaa u baahan tahay si markaasi grammarka aad u fahanto. marka insha allah koorsadaani aad iyo aad ayay u xiiso badan tahay, waxaana rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doonto. marka waxaa jiro waxyaabaha aad ka filan karto koorsadaan intay socoto. horta waxaad filanaysaa shaqada ugu badan inaad adiga qaban doontid. 80% shaqada adiga ayaa qaban doonto, anigana 20% ayaa qaban doonaa. marka waxaan ula jeedaa ani 20% inaad wixii ku fahansiiyo, sharxo ku fahansiiyo, balse adiga ayay kaa go'daa in aad wixii ku celceliso, exercisedii kasoo shaqeyso, sheekooyinka lagu dirayo aad soo qorto, maxaa la dhahayay codadka haddii lagu diro codad soo duub la dhaho codadkii aad soo duubto. marka 80% xoogeeda shaqada adiga ayaa qabanayso. waxaa kaloo rajeynaysaa ama filanaysaa shaqo aad u fara badan, exercise aad u fara badan. cashir walbo exercise ayaa la socda hadduu ilaahay ka raali noqdo. exercisekaas ayaa laga doonaya inaad dhammaantiis kasoo wada shaqeyso hadduu ilaahay ka raali noqdo. waana lagugu cadaadi doonaa insha allah. waxaan mataqaanaa la kulmi doontaa in mataqaanaa haddii aad 4 cashir ama 4 maalin aad cashirka soo gudbin weyso, kasoo shaqeyn weyso exercisada ama cashirada aad qaadan weyso, inaan kula soo xiriiro email ama whatsapp ama sidaa doonaba aan kula soo xiriiray, kadibna aan kula hadlo. haddii aan dhowr mar kula hadlo waxaad ku talagalaysaa marka xigto inaan koorsada kaa diliidi doono ama accountkaada kaa xiri doono. marka ma doonayo inaan account aniga qof ka xiro, laakiin ulajeedka aan shaqadan u qabanayo waxay tahay in aan xoolo xalaalo wax xalaalan helo lagana faa'iideysto. marka adiga qarash ayaa kaaga baxay, koorsada free ma ahan, qarash ayaa kaaga baxayo. marka qarashka maadaama kugu socdo waxaa lagaa doonayaa in aad si wanaagsan ama aad uga soo shaqeyso, wixii dhan aad ula socoto. haddii kale waxay noqonaysaa in aan qarash kaa qaato, wixii aniga aan kuusoo gudbiyana aadan ka faa'iideysanin. marka waxaad filanaysaa inaan ku cadaadin doono haddii aad mataqaanaa ay dantu kalifto. marka koorsadaani horta maxaa lagaaga baahan yahay, toolska ama qalabka aad u baahan tahay maxay tahay si aad koorsadan uga faa'iideysatid. marka hore waxaad u baahan tahay qalin ayaad u baahan tahay iyo buug ayaad u baahan tahay. waxyaabaha u baahan tahay marka waxaa u baahan tahay marka hore buug ayaa u baahan tahay. waxaa kaloo u baahan tahay ayadana qalin oo u baahan tahay, pen oo u baahan tahay, at least 2 qalin ay u baahan tahay oo kala nooc ah. waxaa kaloo u baahan tahay ayadana maxaa la dhahayay mobile, smartphone ama computer. labadaas midkood inaad heli karto ayaa u baahan tahay. telephone ama computer inaad heli karto waa muhiim waa ayadana. waxaa kaloo u baahan tahay at least 2 saacadood fasax inaad heli karto.
at least maalin walba inaad 2 saac naftaada kasoo gooy karto. Waan ogahay inay mashquulku iska badan yahay, laakiin 2 saac inaad naftaada u gooy karto inaad wax ku barato, ama 2 saac haddii kugu badan tahay 1 saac ilaa 1 saac bar inaad heli karto. waxaa kaloo ayadana u baahan tahay ciwaan gmail ah ayaad u baahan tahay. marka ciwaan gmail ayaa u baahan tahay ayadana oo mataqaanaa aan sharxi doono sida mataqaanaa aad u isticmaali lahayd. marka koorsadani waxay ku base garaysan tahay book la dhaho buuggaan la dhaho English for Everyone ayay ku base garaysan tahay. waxaan rajeynayaa inaad arki karto English for Everyone. hadda meesha waxaan ku qoran marka course book level 1 ayaa ku qoran beginner. marka buuggan wuxuu ka kooban yahay 4 qaybood ayuu ka kooban yahay. marka waxaan rajeynayaa inaad mataqaanaa haddii aad awoodo inaad gadato ama heli karto, Amazon ayuu ku jiriyaa, aad download garaysan karto, Amazon aad ka gadan karto. halkii book waxaan qiyaasayaa $12 iyo wax lamid inuu yahay. waad iibsan kartaa, Amazon ayaa ka iibsan kartaa. haddii aadan Amazon ka iibsan karin laakiin meel kale library kale aad ka heli karto, ayadana waa muhiim inaad hesho. haddii aadan heli karin, inta badan hadda dadka Soomaaliya jooga kale waxaa laga yaabaa inaysan buuggan heli karin oosan dukaamada Soomaaliya laga heli karin ayaa laga yaabaa. haddii aadan heli karin waxbaha isku mushkileynin, waxaan isku dayayaa cashir walbo aan sharxayo inaad si wanaagsan marka hore sabuurada ugu sharxo, iyo inaad soo iskaan garayo casharada, inaad casharada qaar soo iskaan garayo kale, casharada ugu muhiimsan, qaybaha ugu muhiimsan inaad soo iskaan garayo, kadibna aad website-ka ka download garaysatid ayaad ku suubin doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo. marka buuggan 4 qaybood ayuu ka kooban yahay. marka qayb walbana waxaa la socdo qayb la dhaho, hadda kan waxaa la dhahaa course book ayaa ku qoran. waad dareemi kartaa magaca ujeedaa, course book waaye, waa buugga koorsada waaye, cashiradii ayaa ku qoran iyo exercise-na uu ku qoran yahay. waxaa kaloo la mataanay asagana midkan la dhaho maxaa la dhahay practice book ayaa la mataanay. marka buuggan ayuu la mataan yahay. marka waxaa ku jira waxba kuma jiraan asaga, waxaa ku jira oo keliya exercise aad iyo aad u fara badan ayaa ku jiro. marka waxaa kaloo asagana jiro oo 4 book la mataan midkan kale la dhaho English for Everyone grammar book. marka waa asaga hal xabo waa grammar guide waaye, waxaa ku jira oo keliya grammarkii oo keliya ayaa ku jira. asagana waan isticmaali doonaa wax badan, xoogiis ugu badanna waxaan ku isticmaali doonaa level 2 ayaan ku isticmaali doonaa. level 1 intaa ku jirna casharada qaar waan kasoo qaadan doonaa. marka insha allahu waxaan rajeynayaa inaan si fiican koorsadani iskala wada faa'iideysan doono. marka koorsada waxaa kaloo la socdo ayadane, waxaa kaloo la socdo oo aan raba dhammaantiin inaad hadda soo download garaysataan, app ayaa la socdo, app la dhaho English for Everyone ayaa la socdo. marka Play Store-ka haddii aad gashid waxaan rajeynayaa inaad shaashadeeda arki kartaan. appkan waxaa la dhahaa English for Everyone ayaa la dhahaa. anigu ii download garaysan yahay, marka waa muhiim adigana inaad soo download garaysatid. haddaad furtid appka waxaad arkaysaa exercise-yadoo dhan appkan ayay ku jiraan. marka appkan ayaan isku dayanaa inaan mataqaanaa inta ugu xoog badan aad ka faa'iidaysataan. waana app free waay, waa soo download garaysan kartaa. kadib markuu appka ku download garaysmo, meeshaan get free audio ayaad ku dhufanaysaa. kadib waa ujeedaa buugga intuu ka kooban yahay, buugga dhan waaye oo qeybihiisa kala duwan oo dhan. marka level 1 oo kale, marka exercise walba aan idiin dirayo, haddii aan kasoo bixiyey course bookga kasoo bixiyey iyo haddii aan practice bookga oo ku jiriyo, labada midkuu ku jiriyo waan soo sheegayaa. exercise walba waxaan idin leeyahay wuxuu ku jiriyaa practice book ayuu ku jiriyaa. marka practice book uu ku jiriya haddii aan ku dhaho kale, practice bookga ayaa ku dhufanaysaa. kadibna exercise-ka ayaa raadinaysaa. tusaale ahaan oo kale, hadda waxaan rabaa inaan idin tuso kale, waxaan rabaa inaan exercise-kan idin diro kale. exercise-kan ay ku qoran tahay 3.5. exercise-ka numberkiisa ayaa halkan ku qoraysa oo keliya 3.5 ayaa halkaas 0.4 aan dhihi lahay ayaa ku qoraysaa. kadibna waa kuu soo baxayaa. markuu kuu soo baxo kadibna waad dhegeysanaysaa. Is 87 years old. Is it? Abe is 72 years old. ujeedaa. marka maanta dhan waan ku ceshan kartaa. Mia and Leo waad dhegeysanaysaa. marka maanta dhan waan ku ceshan kartaa.
marka insha allah waxaan rajeynayaa inaan koorsadan hordhac muhiima oo fiican oo dhammaystiran inaan siiyey ayaan rajeynayaa wixii aan iloobay. marka nidaamka exerciseyada looga soo shaqeyn doono waxay u kala qaybsan yihiin laba qaybood. qayb inaad buuggaada uga shaqeyso oo sawir aad kasoo qaado, iyo qayb inaad website-ka uga shaqeyso oo kadibna aad soo gudbiso. marka qaybta website-ka looga shaqeynayo ugu badan, inta buugga looga shaqeynayo waa iska kooban tahay, laakiin marar badan waxaad u baahan doontaa buuggaada inaad si qurux badan uga soo shaqeyso kadibna aad soo gudbiso. nidaamka exerciseyada usoo gudbi lahayd insha allah cashir kale ayaan ku sharxi doonaa. hadda halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.